السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا السلام دمانتين أمة الصومالية ذي هالكني قطع ونيسا ميل كستو تشوكتان إيه وقت كستيدين تاي إن وحن دونيا أو أن ربا إنا أن كهالله الصومالي هرت الصومالي هو استقامة ويس تريسا أو ويس إن تريسا ويس قلب تريسا way istaqaana anigu markaan saa hadda u soo fariisteed saa u furto fiidiyowgayga inaan hibo ahay qof kasta uu iska garanaya marka qofkii yiraahdo hibo ma tihid ama hibo ma aha qofkani qof kula murma de qof waalan baa loo arkaya dadka oranaya 24 saac maanta social media iyo meel kasta la soo fadhiya ee faraxsan ee alalaasaya ogaadeen hal qabsado anigu waligay qabiil kuma hadlin qabiil dhinaca ii gali maayo qabrigayga camalkayga la galaya laakiin marag jirkiis lahaye jirid kama qoslay Soomaalidu ku maamaada mararka qaarkood markaad waxyaabaha qaarkood oo aadan dadka u quurin aad aragto wad xanaaqaysaa adigana ina aad qofka aad tahay is sharaxdo way kugu kalifaysaa marka si ay dadku ku ogaadaan qofkaad ahayd iyo qofka aad maanta tahay kaad ahaan doontaba waxa jirtay qarniyo badan taniya Axmed Gurey iyo in ayna garanayno ka sii horeysaba ina ay deegaanka ee Ogaadeniya ama ka xanaaq madaad deegaanka Ogaadeniya la yiraahdaa dalka Ogaadeniya ina ay ama DDS ina ay qarniyo badan ka soo jireen dagaalo isdaba joog ah oo lagaga xoreynayay ama gumaysi haysta ahaado ama wasa qoomiyada kale oo aan Soomaali ahayn oo dhulboob ku jiray lagaga xoreeyo haddii aan soo qato qoomiyada Ogaadeenka boqolkiiba 80 bay ka tahay deegaankaas Ogaadeniya way ku qasban tahay in magaceeda loo bixiyo waa wax iska fudud aad bay u fududahay in qofka boqolkiiba 80 ah ina magaciisa meesha loo bixiyo aad bay u fududahay ta kale markaan ka soo gudbo waxba hadaan ku sii dheeraanin magacaas waa la yiraahdaa waana la oran doonaa qofkii aan raali ka ahayn rabina 20% wax ay tahay iska yarba boqolkiiba 80 hadii uu magaca rabo 20 qofna wax weydiin mayso horta 80% waxa ay keen weydayna 20 horta keeni mayso taana waa inaad qalbiyadiina gelisaan tan kale waxa weeyaan Ethiopia Soomaalidan oranaysa xuduudadii baan xidhanay iyo igaraala hada telefoon baa soo galay Soomaalidan oranaysa xuduudadaanu ka xidhanaynaa iyo Ogaadeenka nagu soo qaxay iyo Oromaano soo dhaweynayna iyo war waxa doontaa soo dhaweey Soomaaliyeed awalba naxariisidun kuma aanan haysan hagardaama iyo lug qabasho cadow mooyaane iyo dhabarka toogashi iyo u baqna goyn cadow mooyaane horta naxariisidun kuma aanan haynin Soomaali nooma kala sokayso anaga way nala wada dhasheen way noo simeeyeen way jiraan kuwa abtirna la wadaaga laakiin waxba noogama sokeeyaan kuwa kale aan hal idin sheegay haddii aan ka hadlo qoomiyada Ogaadeenka waxa ay ahayd ama ay tahay war anagu Ethiopian-kan aad sheegaysaan waligana waanu isnaqaana waanu isla dagaalami jiray waanu isla dagaalami doonaa Ethiopia anagayna taqaanay idinka idin ma taqaano Ethiopia anagay dan naga leedahay idinka dan idinka male waxaad ugu daba dhaqlaysaan iyo ugu sacabtintaan baaba iska yar Ethiopia idin ma rabto idin ma taqaano Ethiopia Ogaadeen bay taqaana Ethiopia Ogaadeen bay danaynaysaa oo wax ka rabtaa Ethiopia albaabka markii qofkii garaaca magaca Ogaadeen bay ku furtaa aan idin sheegay awooyaday iyagoo go yar oo cad oo rifrifan iyo usha ay geela ku raacaan wata ayay Ethiopia meel iska saareen waligana miyad naga maqashan anagoo la Soomaaliyeey noo soo birmada Soomaaliyeey ciidan hana loo keeno Soomaaliyeey hubna siiya no idin mana oran doono horeyna idin ma aanan oran inaga warsuga Soomaaliyeey waxba ha sacabtamin waxba ha riyaaqina anagu awood aanu lahaan jiray haddana waanu leenahay ciidan baanu leenahay dawlad baanu leenahay kala dambeyn iyo maamul iyo madax baanu leenahay
ani waxba igama gelin madaxweyne la bedelay iyo ku hadda la saaray iyo waxaasoo dhan aniga kii meesha yimaadaaba waa kii kale ee Soomaaliya meesha qabsada laakiin waxaan idiin sheegayaa reer DDS ama ogaadeynaya Soomaalida nagu xeeran ee sacabtumaysa inkasta oo aanu dagaal ku jiro oo cadow foolka fool isu hayno haddana dhawaaqyada idinka soo baxayay dhagahanaga way ku dhacayaan kii samaan noogu dhawaaqa iyo kii xumaan noogu dhawaaqaba waxaanad ogaataan ku darso oo qof kasta oo meeshaad noo istaagto ayaanu ku taaganahay annagu ciidan baanu leenahay ciidamadii aad ka cabaadayseen ee new police way joogaan waa kuwa maanta dalka xoreeyay ee xuduudada fadhiya militariga Itoobiya tabaqda u diiday weeyaan shacab baanu leenahay geesiye ah oo baabuurta iyo taangiyada isu dhigayaanu leenahay waxba idinkama baahnina hagardaamada uu naga daaya Soomaaliyeed qosolo waa hiila la yiri oroma ninka u qoslaya ama soo dhaweynaya ama se ka xiranaya hooyooyinka Soomaalida ee is yiri inta dhalinyaradu dagaalamaysa bal dhinaca kale aad ka soo xiranaya oromkana soo dhaweynaya horta bishaaro ku bishaaraysan ku oromana meel aad u marto ayaaba iska yar oromana dad haday abaal u galisay abaal celinayso annaga inoo celin lahayd annaga canjeeradanada ku soo kortay annaga jabhadooda haynay jabhadooda hagaysay annaga tababaraynay annaga jidka tusnay ay ku xoroobeen ta abaalka garan weyday maalinkii kursiga loogu dhawaaqay ay saad aragtay u gashay caasimadanada intay meel walba soo dhaaftay ay soo weerartay weeyaan horta oroma waa taa haday ku qaniinto jaad iyo lows jidkaaga kaga dhex tagaysa teetana weeyaan horta iska ilaaliya afkaba xirbaha kaga jiray waxaad soo dhaweysatay horta waaba taaba bagaadan horta dad waxtar ah sida axmaaro iyo tigree aadan soo dhaweysanin oo waxa aad soo dhaweysatay uu oromo huuro leeyahay aad baan uga xumaay horta waxaanad ku bishaaraysataan Itoobiya horta annaga idin dhaxayna Soomaaliyeed annaga ka sokeena waxa la hebelo waxa ka sokeeyana day oo arag intaad Itoobiya indhaha u laalinaysaan horta ogaadeynaya ka sokeysee qub ha idin tiraado ha idin dhacdo saaxiibayaal ogaadeynayana annagiyo geel jiro oo ul wadanana Itoobiya annagu horta ka adkayno iskaga filay oo aanu ka adkayno gobol uu ogaadeen dago horta ma joogto axmaarana ma timaado mana soo gali karto bal ar gobol qadahar dhagax buur war dheer maxaan ku dhahaa afdheer ku arag iyo naga axmaar ma iman karto goboladan kale Soomaalida kala degaanay oromo iyo balaayo iyo xinka ogaadeenka ay u soo kaxaysteen baaban horta isku haysanay raganagu ku dhamaadeen difaaceeda mooyaane goboladanada anagu waa hore anagoo geela raacnaanu ka adkaan macda la waaba anagoo dawlad iyo ciidan haysana dawladna haysana maxaabad u malaynba iyadoo Itoobiya danna naga lahayn waxba naga danaynaynin ayaanu ka adkeen macda la waaba iyadoo nadanaynayso shidaalka nagana rabta 40 milyan ee gaajaysana doonaysa inaanu u hayno oo Itoobiya dan naga leh iyadoo Itoobiya oo dhan la dagaalamaysaanu ka adkeen macda la waaba tiyo kilaladii kalaaya in la soconay oromo oo kaliya tahay horta ku seexo ku soo toosa dadka alalaasayo ina aan si kastaba ha noqotay inaana marnaba la iga guuleysanayno goosh gacantayda ku jirto waan ka xumahay dadka ku faraxsanaa ee moodayay xuduudadan xidhay oromo soo dhaweynaya minaamin ogaadeen hal la qabsado no ogaadeen isagoo go yara rifan wato galool hoostii seexda dhulkiisa la qaadan waay macda la waaba isagoo dawlad iyo saanad hubeed iyo madaxweyne iyo maamul iyo kala dambeyn leh oo nalifo jabhad oo ciidana ana iska leh new police ana iska leh ciidamo kale oo waxa jirta aydan ogay new police badbarateen oo yaala jira oo aan la soo baxay hadda oo ciidamadii naarta ka waraabiyay oromadii soo weerartay dhulkayga taaka inta in la eg ugama tanaasulayo oromo Soomaalina waan iskaga filahay Itoobiyana waan iskaga filahay qof aan ii baahnayna uma baahni laakiin derisnimada la ilaaliyaan dhih laha lama kala maarmo Ilaahay baa inoo wada dajiyay oo Soomaalinimada halkaas ka dhig Soomaali waa hore meedkeeda kala guratay waxba isuma aha Soomaali waa taa alalaasaysa ee cadawgana soo dhaweynaysa walaalkeedna riixaysa weeyaan taas waanu iska helmaan halkaas ka dhig waxaad ogaatay derisnimada saad ugu xadgudubtay bari kamaal adna waa lagu xadgudbi doona abaaraha dhici doona shalay un bay ahayd marka aan xoolahaaga iyo caruurtaada iyo odayaashaadaba aan tunka saa ugu wadeen biyaha ugu dhaaminayay laakiin Soomaali abaal male oromo oo kala nagu noqoteen
dhibsa male jazaaka allahu khayr ilaahay baanu ajarkaas ilaahay dartii baanu ugu samaynay madaxweynaha anaga ruuxiga abaa u sameeyey kii la doortaana waa cabdi oo kale un kii soo fuula xilka waa cabdi oo kale un cabdina geesinimay Itoobiya uga cabaadaysaaye xumi ugama cabaadayso horta cadowgaagu haddaad aragto cadowgaagu qof uu nacayo waa qof adiga waxtar kuule dadkaygow waa inaad taa ogaataan weligiin cadow ha u soo raacina qofkiina waxaan idin leeyahay tawaaqeedii soo baxay Soomaalida ka soo baxay waan maqlayay oromana meel baan iska saaray waanan iska saari doonaa Soomaalida kale ila degan ayaan u soo noqonayaa qofkii aan ogaadeenaya ogolayno intaada yaree degan tahay ku darso oromo ku darso qolo kale aday ku taala horta hadda nolosh nabadda waan xasilinaynaa idinka tagi meeyno meelana idin goyn meeyno laakiin maalinkeen nabaddu sal dhigto ku seexo ku soo toos qolada doonta ku darsanaysa tuulayowgina ku darsanaysiin annaguna goboladana way nagu filayeen 7 gobol baan leenahay 9 gobol ma aha 7 gobol baan anagu leenahay 7 gobol shidaalka buuraha dahabka xoolaha nool intaba aniga iska leh wabillahi tawfiiq maxaa la soo dhibaya walaal ban imisa qarni leeyahay qof waxaan ku iri aad kabihiisa tolayso kafankaaga tolaya cajiib assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waan idin wada salaamayaa waxaana soo dhaweynayaa madaxweynaha cusub ee la doortay soo dhawow welcome baan leeyahay insha Allah waxaan rajaynayaa inaad shaqo wanaagsan qaban doonto inta aad xilka hayso markii lagu yimaado lagaala wareegana insha Allah mid khayr qaba Allah noo keeno dhamaantiin waan salaamayaa nabaday